marno qaybaha ugu muhiimsan ee ah sida ay u saameyn karto caafimaadka si gaar ah dadka raba miisaanka inay iska dhimaan oo kale. bisha Ramadaan waa bishii loogu talagalay qofku inuu miisaankiisa ku xakameeyo. runtii waa soomitaanka qofku saacadaha uu sooman yahay cuntadina uu ka afhaysto oo waxay u suurto gelinaysaa in dufankii tirada badnaa ee jirka ku aruursanaa si qaas ah qaybaha caloosha iyo qaybaha dambe iyo garbaha iyo meelaha la midka ah inta badan dufanku ku aruuro in dufankaasi dib loo soo furfuro kadibna dib loo isticmaalo oo wax la yiraahdo mataqaanaa lipolysis jirkeena ay ka dhacaan oo dufankii tirada badnaa dib loo soo furfuro. kadib markaas waxaa ka imaanayda in qofkii miisaankii tirada badnaa uu ka yaraado si qaas ah xeedhii tirada badneed ka gubanto ay ka yaraato. waxaa iyaduna ku hoos jira barnaamijkaas oo qaybtaas mataqaanaa miisaan dhimista ah haddii qofku uu qabay xanuunada ku yimaada ama xanuunada la xiriira dufanka sida kolestaroolka triglyceridka aad u badnaa bad kolestaroolka in dhammaan hoos ay u dhacaan maadaama qofku uu sooman yahay cunto kale uusan cunaynin keedkii loo dhacay oo lasoo burburiyey wax la lipolysis ay dhacday. taas waxay keenaysaa marka in dhammaan waxyaabihii la halmaala dufanka tirada badnaa ee qofka laga sheegi jiray markastoo la baaro shaybaarka la geeyo inay hoos u dhacaan markaasna uu ka fiicnaado.